Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kooraskeenii farsamada baabuurta. Waxaan ku guda jirnay cutubkeenii labaad, waxaan maraynaa casharkeenii saddexaad. Casharka saddexaad waxaan uga hadli doonaa olayada baabuurta. Casharkan waxaan idiin soo jeedin doonaa anigoo ah Maxamed Xaris Faarax. Wixii jawaab celin waxaad noogu soo celin kartaan emailka shaashada inay ka muuqda. Sida caadada noo ahayd, kooraskan waxaa kala socoteen Somalism Online Academy. Olayada baabuurta. Nidaamka saliidaynta baabuurta waa nidaam saliidda loogu gudbinayo qaybaha matoorka ee wareegaya si looga hortago inaysan dhicin islisid iyo isxoqitaan ka dhex dhaca biraha. Olayadu waxay ku kaydsan tahay saytukoobada waxaa ka soo qaadaysa tuubada afka shandada ku leh. Waxaana soo nuugaya buumka olayada oo u bamgareynaya qaybaha olayada looga baahan yahay matoorka. Olayadu waxay sii maraysaa filterka olayada intaysan u gudbin matoorka. Filterka sifeynaya kadibna meelihii looga baahan yahay baa olayada la gaarsiinaya. Waata olayadii oo ku kaydsan saytukoobada, bamkii oo bamgareynaya, filterkii oo sifeynaya, olayadii oo gaaraysa meelihii looga baahnaa. Halkaas ay hadda marayso waa arxankii iyo waalashii meelihii shaqeynayay. Kadibna waxay kusoo daadanaysaa saytukoobadii oo kusoo laabanaysaa circulationkaasi ku jiraysa ama wareeggaasi ku jiraysa olayadu. Waatan olayadii sidoo kale bastomadii gaargaaraysa. Waata olayadii waxay ku kaydsan tahay saytukoobada, tuubada afka shandada kula kasoo nuugaysa. Bamkaasana sababaya in la soo nuugo, filterkay maraysa kadib waxay aadaysaa meelihii looga baahnaa olayada. Qaybaha olayada. Olayadu waxay ku kaydsan tahay saytukoobada waxaana ka soo qaada bamka olayada. Bamka waxa uu leeyahay meel ay olayadu ka soo gasho iyo meel ay ka baxdo. Meesha ay ka soo gasho olayadu waa tuubada afka shandada ku leh ku dhex jirta saytukoobada. Meesha olayadu ka baxdana waa dhunta dhex marta balookada waxaana u dalooshaa filterka olayada si wasakhda ay uga reebto. Filterkaas wuxuu wasakhda ka reebaya olayada si olayada sifaysan ay u gaarto matoorka iyo meelaha looga baahan yahay. Guud ahaan olayooyinku waa dufan loogu talagalay inay kala ilaaliyaan biraha wareegaya. Olayooyinka matoorka waa laba qaybood, olyo 40 iyo olyo 50. Olayadu marka la leeyahay olyo 40 iyo olyo 50 yani waxaan ugula jeednaa olayooyinka laga isticmaalo dalkeena, laakiin olayooyinku wadamada way ku kala duwan yihiin. Waayo cimilada bay waxay la leedahay calaaqad la leedahay oo olayadu waxaa loo fiirshaa culeyskeeda iyo inta ay temperatureka ama heerkulka u dulqaadan karto. Marka dalkeena olayooyinka ugu badan laga isticmaalo olyo matoorka laga isticmaalo waa midda 40 iyo 50. Waxaan usii kala baxaan laba qaybood oo kala ah olayada matoorada baasiinka ah iyo olayada matoorada naftada. Olyo 40 waxaa isticmaala baabuurta yaryar. Olyo 50 waxaa isticmaala baabuurta waaweyn. Olayada kaambiyo isticmaalo ayaduna waa laba nooc. Maadaama laba kaambiyo jiraan, kaambiyo kasta olyo u gaar u isticmaala. Olyo gear 90 iyo olyo hydraulic 33. Olyo gear 90 waxaa isticmaala kaambiyaha manualka. Olyo hydraulic 33na waxaa isticmaala kaambiyaha automatic. Candooyinka ayagu waxaa isticmaalaan olyo u gaar ah oo la yiraahdo olyo gear 140. Bulmunaha olayada. Bulmunaha olayadu waxa uu sheegaa shaqada olayada waxa uuna shaqada u soo gudbiyaa saacadaha. Bulmunuhu waxa uu u qaybsamaa laba qaybood. Bulmuna la shaqeeya gulubyo iyo bulmuna la shaqeeya saacad. Bulmunadu waxay leeyihiin god ay olayadu ka soo gasho iyo clip ku xiran yahay wire. Clip ku wire ku xiran yahay oo shaqada ka qaadaya. Bulmunaha gulubka waxa uu sheegayaa bulmunaha gulubka asoo wuxuu ku sheegayaa olayada inay shaqeynayso ku sheegaya balse kuma sheegaya xaddiga olayada kuma sheegay. Laakiin bulmunaha saacadaha la shaqeeya waa bulmuna ku sheegaya hadba olayada intay ka caso shaqeynayso. Filterka olayada. Filterka olayadu waxa uu sifeeyaa olayada wuxuuna ka reebaa wasakhda. Filterka waxa uu olayada sifeeyaa inta aysan u gudbin ama aadin matoorka. Filterku wuxuu leeyahay meel olayadu ka soo gasho iyo meel ay ka baxdo. Filterku waxa uu marka uu shaqeeyo muddo waa la bedelaa. Filterka olayada. Filterku waa filterka loogu talagalay olayada saa'idka inuu celiyo oo ku celiyo saytukoobada. Filterku waxa uu ka kooban yahay aspirin, xabuub iyo god. Filterka waxa soo gala olayada olyo cadaadiskeedu sareeyo pressure ah
oo ka imaanaysa bamka. Filteriga olyada uu celiyo ma ahan olyo aad u tiro badan, waa olyo yar oo loo reebay saaid ahaan inay ka badan tahay xaddigii loogu talagalay inay aado motor gunaanad. Nidaamka olyadu waa nidaam looga hortagayo islisidda biraha wareega ee ka dhex dhacaya. Olyadu waxa ay u kala baxaan 3 nooc: olyo motor isticmaalo, olyo kaambi isticmaalo, iyo olyo cadooyinka isticmaalo. Olyadu waxay leedahay level loogu talagalay in lagu ogaado xaddiga ay marayso olyada iyo nadiif ahaanteeda, olyada inay nadiif tahay. Marka olyadu madoobato waa la bedelaa inta badan. Olyadu waxaa la sifeeyaa inta aysan u gudbin motorka ayaa olyada la sifeeyaa. Marka ay motorka u gudubto ayadoo sifeysan buu u gudbisaa. Dhammaad casharkeena maanta intaas ku egyahay. Aad baa u mahadsantihiin. Insha Allah casharka xiga inoo balana. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.